السلام عليكم مقعي هو يوسف طبعا halkan waxaan ku soo gudbiyaa muuqaalada khuseeyo motivation-ka dhiirigelinta waxyaalahaas ku soo gudbiyaa waxaan maqnaa muddo ku dhawaad bil maalmaha raacayo dabcan waxaan ku maqnaa ma ahan waxaan halkan ka sheegi karo mowduucani maanta wuxuu ku saabsan yahay sirta horumarka haddii aad rabtid inaad ogaatid sirta horumarka muuqaalkani waa muuqaalkaaga dabcan inaad sirta horumarka ogaato kaliya waxay ku xiran tahay inaad muuqaalkan dhameysato dabcan waxaad noqon doontaa qof faham fiican ka haysta sirta horumarka iyo wax walba oo khuseeya horumarka mid ugu horeysan ku horumaraya waxay tahay weliga Ilaahay ku kalsoonaaw kalsoonida Ilaahay waxay ku horseedaysaa horumarkaaga horumar haddii aad rabto waa inaad Ilaahay ku kalsoonaataa haddii aysan jirin kalsooni buuxda horumar ha sugin horumarka lagu sheegayo dhan waa inaad Ilaahay ku kalsoonaataa mid labaad waxay ku leedahay tasbiixdaada waa inaad badsataa haddii aad gaari fuusho jam ku jirto iyo haddii aad lugeynayso kaliya tahay wax walba aad sameynaysid waa inaad tasbiixdaada badsataa haddii aad tahay qof tasbiixda badiya ama qof Ilaahay ku kalsoon labadaasiba waxay ku horseedi doonaan horumarkaaga haddii aad isdhehaysay sideed ku ogaanaysaa inaad horumar gaarto maxaa ku jiro meesha oo sir ah haddii aad isdhehaysay sirta waatana tasbiixdaada badso xaalad walba aad ku sugan tahay noqo qof tasbiixsada tasbiixda waxay ka caawinaysaa waxyaalo fara badan oo inta lagu soo koobi karin haddii ay dhacdo in tasbiixdaadu ay badato waxaad tahay qof ogaaday sirta horumarkiisa labada aan soo sheegnay waxaa ka mid ah in Ilaahay ku kalsoonaatid kalsoonida Ilaahay in Ilaahay ku kalsoonaataa wax walba ay ku fududeynaysaa sirta horumarkana waa in Ilaahay ku kalsoonaataa tasbiixdana aad badisaa xitaa tasbiixda waxa kale oo kaga maarmaysaa inaad qof bini aadan aad u baahato maanta haddii ay dhacdo in xaaladaadu iska yar xun tahay ma dhici doonto inaad qof bini aadan u baahatid haddii ay dhacdo in tasbiixdaadu ay badato meesha waxa imaaday inaad bini aadan oo dhan ka kaaftoontay midaadna waa muhiim tasbiixda been idin ma sheegayo waxa ku qarsoon waa waxa halkan lagu soo koobi karin haddii arrin ku qabsato problem adiga xalin weysi haddii ay imaadaan aad isleedahay yaa xalin doona problemkan tasbiixda badso halka adiga arki doona mid saddexaad waxay ku leedahay dadaalku waa muhiim sababtoo Ilaahaba wuxuu dhahay adoonkaygiiyo dadaal anna waan kula jiraa dadaal la'aan wax ma qabsamo haddii aad isleedahay sirta horumarkayga waxay ku jirtaa qarash waxay ku jirtaa lacagaadan helay in la maalgeliyo qof uu buush gareeyo maya sirta horumarka kuma jirto sida horumarka wuxuu ku jiraa inaad qof horumaray noqoto sirteeda waxa waa inaad dadaashaa dadaal la'aan wax ma suurta galo xitaa istaag fadhiga ka kac dadaal haddii aadan wax shaqo aadan haynin xitaa dadaalada iska yar qabo wax uun sameey haddii aadan dadaalin waxba ma ku suurta gali doono sababtoo Ilaahayba wuxuu dhahay adoonkaygiiyo dadaal anna waan kula jiraayo micnaheedu ma iska seexo waxaad u baahato dhan farta ka saari doona hoostaadan keeni doona laguma dhihin Ilaahayba mar hadduu ku dhahay dadaal waxa la fadhiis anu garan maayo istaag oo dadaal waxaad noqon doontaa haddii qof guuleysto sirta horumarka lagu sheegayo waa saddexdan soo sheegnay midka ugu horeeya wuxuu yahay waa inaad dadaashaa midda labaad waa inaad tasbiixda badisaa midda saddexaad waa inaad Ilaahay ku kalsoonaataa kalsoonida Ilaahay tasbiixdaada inay badato iyo horumarkaaga wax badan ay ka saacidi doonaan midda kale oo xigtaa waxay ku leedahay noqo qof aaminaad badan aad ay muhiim u tahay haddii aad rabtid inaad horumar samaysid ama aad rabtid inaad ogaatid sirta horumarkaaga waa inaad qof horta aamin aad noqotaa sababtoo ah qof walbo inuu ku aamino waxay ka saamaxaysaa in dhaqsi aad horumarkaaga ku gaarto waxaan ula jeedaa meel walba ayaad tagi doontaa qof iska dhay qof wada shaqeyn idinka dhaxeeyo bani aad u shaqeyso qof walaalood isla joogtaan guri aad ku nooshahay hooyadii ku dhashay ilaa iyo qof walbaba waxa loo baahan yahay inuu ku aaminaa haddii aad tahay qof aaminaad mudan oo macnaha la aamino oo aamin ah haddii aad tahay sirta horumarkaaga waa haysaa waxay ku xiran tahay inaad horumar gaarto waa inaad fast adiga qof aamin ah noqotaa insha Allah marka ku dadaal inaad noqoto qof aamin ah waxay ka caawin doontaa waxyaalo fara badan adiga muhiimada ha u sameeynin waxa sameynaysid aamin waay ha lagu dhaho ahaan ha u sameeynin laakiin waxaad u sameynaysaa Ilaahay dartiis waxaad qabanaysid haddii ay wax wanaagsan yihiin waa wax wanaagsan haddii ay wax xun yihiin Ilaahay kaga baq qof aamin ah noqo mid kale xigtaa waxay ku leedahay noqo qofka waxa uu sheegay ka run sheeg qof waxa uu sheegay mar walba ka run sheega noqo been ha sheegin waxa jira dad saaxiibadaada inay ku soo wacaan ay og yihiin inay garab ku siinaysid beenta ay sheegayaan ayagoon ku soo wacin oo ku sheegin xitaa inaad been aad garab ku siin doonto xitaa sometimes ma ku sheegaan laakiin way ku soo wacaan qof baa ag joogo beentii u sii saxdaa ma fiicna noqo qof waxa uu sheegay ka run sheega noloshu mar walba aad sameynaysid waxyaalo daacad ah ama aad sheegaysid waxyaalo run ah runta lagugu bartay qof aamin aad tahay Ilaahay ku kalsoon tahay Allahu musta'aan aad sameynaysid maxaa la isma macrifada Ilaahay aad ku dadaalaysid kalsoonida Ilaahay aad ana qof dadaalaya aad tahay waxyaalahaas haday mar iska ka kulmaan wax kale ma sirta horumarka lagu sheegay waa inta horumar ma doonaysaa samee waxa lagu sheegay qabo waxa lagu sheegay intaan haddii aad sameyso waxaad noqon doontaa qof horumarkiisi aanan fogeyn horumarkaagu waa dhow yahay sirta horumarkana waa haysataa insha Allah muuqaalkan maraba inaan ku dheeraado halkan ayaan ugu bixi doonaa insha Allah ka kulmeen muuqaalka waxa idin leeyahay see you next video bomb class awliya kalmanaabahooda bye